الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وقبل كل شيء مهضوطا إلهي بإسكاله سبحانه وتعالى إنه أقول هذا قريقا حراشا اسمه ساعة عاوين أسكوني مادنا نعم كواوين الاسكوي مادنا كمذا انت وحي يقول حكتا كلمة ذي وحي كصاب سنان دونتا أفرق قضب إن شاء الله تعالى qodobka koowaad wuxuu noqonayaa hambaliyada iyo tahniyada aan u dirayo ama igama foge aan la wadaagayo oo u sheegayo walaalkeen Sheekh Maxamed iyo xaaskiisa Firdawsa. kelimada labaadna waxay noqon doontaa insha Allah taala si guud dumarka ay ku saabsan tahay. kelimada saddexaadna waxay noqon doontaa maxaa ka dambeyn doona hadii Ilaahay ila insha Allah taala fadhigan. kelimada afraadna qodobka Sheekh Cabdiraxmaan uu ka hadlay oo fawaa'ida guurka baan hal meel kaga noqon doona insha Allah. waxaan insha Allah taala ugu hambaliyeenayaa ugu ducaynayaa walaalkeen iyo walaasheen ducadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam kana fiicantii Soomaalida inagu aan ku dhaqmi jirnay ahayd wiil iyo caano gabdhihii baa maqan laakiin tan nabigu calayhi salaatu wassalaam barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khairin. إلهي سبحانه وتعالى هيسو بركايو إلهي سبحانه وتعالى أولاد خير قبتنا ودتوذا إيا دينتوذا إيا دلكوذا أنفع إلهي سبحانه وتعالى هكذا السيو قريوذا إلهي هكيا لمد مرتدى إيا قعال كاللوضة لنعبة إيو culimada iyo marka akhyaarta iyo cid waliba ku soo hirato Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigooda inuu ka dhigo odayaashooda markay ducaynayaan waxay dhihi jireen Ilaahay gubashu ka duugowda koobasha Allah ka jajabiyo saasay dhihi jireen. waxay ka wadaan gogasha aad hadii wax lagu fariisto oo martida iyo dadka fariisanaya ay ku badato way duugoobaysaa Sooma laakiin wax kuugu fariisaba hadaad weydo soo habaar ma taasay dhihi jireen. koobashu waxa ka riga ahmaar iyo alaabtu waxa ka jajaftana macnaheedu waxa weeyaan ciyaal fara badan oo istabayaaca oo isdhaafa oo ku turunturhooda Allah siiyo macnaha saasay u wadaan. marka insha Allah iyaga intaas aan kaga baxaya. qodobka labaad waxa weeyaan aan rabo inaan tilmaamo ee muhiimka ah aan ku labada qodob ee dambaysiinayaa guurkan caawa aynu u fadhinay iyo gurigan faa'iidooyinku leeyahay Sheekh Cabdiraxmaan baa wax inooga taabtay. waxaan ku darayaa dhowr qodob insha Allah taala. waxaad ogtiin adduun baynu joognaa adduunka aan joognana qofku waa meel uu markaa ka sahay qaato sahay la qaato markaas waxa weeyaan hamoodin inaan geeri ka hadlayo meelahan oo kale lagama hadlo likulli maqaamin lahu maqaaltu sheegay wayaan Sheekh Cabdiraxmaan walikulli maydaanin lahu rijaal walikulli sun'atin laha ashkaal walaysa kullama ulima yuqaal. marka waxa uu khayr badan alla ka cabsiga markii laga yimaado waa gabar wanaagsan iyo wiil wanaagsan. nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri xadiiska Abdullah ibn Amr ibn Aas fi sahih Muslim الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا جميل وأراب يدي دلدلال وحنا ugu khayr badan daldalaalkaas zawjo saalix oo ka raacda gabadhan zawj saalix oo ka raaca taas markaas waxa weeyaan ugu khayr badan. guurka fawaa'idiisa sida uu sheegay Sheekh Cabdiraxmaan
macsiyada waxa yareeyo waa isaga hadalkiisu wuxuu xasuusiyay al-imaam al-Qastalani imaamka la yiraahdo waxa uu yiri bulsho hadaad aragto guurka farabadisa waa bulsho khayr u jeeda hadaad aragto bulsho guurka yareysana waa bulsho shar u jeeda sababtoo xalaasha hadii laga maarmo wax laga maarmay baa jira waynu ognahayo magaalada meelaha qaar ciinka iyo xusaska kuyuuba lagu jira wax la qabto ma garanaysiin طيب وحراشي baa laga maaransan yahay walidaalika in badan oo gabdhihii muslimaadka kamida asurqa ee dhalinyaradii xagaaga iyo dhaxamuhu waxay ku laayeen gidaarada iyo xusaska hoostooda waxa keenaya waa guur la'aanta weeyaan guurka laakiin hadii la farabadiyo xaraamta waa laga maarmayaa xalaasha aan laga maarmayaa fawaayida guurka waxa kamida nabigeena kaleeyhi salaatu wassalaam inaguma jiro qof nacbi waxa uu jeclaa inaan jeclaano waa mid nasaaran nabiguna kaleeyhi salaatu wassalaam adduunka wuxuu jeclaa laba qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa adiibu udgoonka iyo cadarka nabigu jeclaa qodobka labaadna waxa weeyaan an-nisaa wa dumarka hubbiba ilayya min dunyaakum an-nisaa wa adiibu waj'alat qurratu 'ayni fi as-salaah wuxuu nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam adduunyadiina waxaan jecelahay anigu laba shay dumarka iyo shayga udgoon baan jecelahay salaadana ilqabowsigayga iyo raaxadaydu waxay ku jirtaa salaadina aan galabu nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam idan waa tarankii ummadina maxamed oo la badinayo waxa weeyaan guurku hadii aan wax kale la eegin ilmaha dhalanayo oo kaliya shan faa'iido ku jirta adduunka waa qurux sida ilaahay ku tilmaamay al-maal wal-banuun ziinatu al-hayati ad-dunya waa qurux adduunka haduu ka hor dhinto oo uu sagiiro ku shafeeco qaadi hadii uu ka dambeeyo wuu ku soo ducayni hadaad wada joogtiin wuu ku markaas waxa ku garab isaagi oo uu ku adeegi ilmaha kaliya shan faa'iido ku jirta maxaad u malay marka faa'iidii kale iyo ajrigii kale taa waxaan ku soo koobayaa marka waxa taqaaneen sadaqada maal mar la sadaqayso iyo qof xoolo hayso sadaqaysta iyo mar miskiin wax lagu sadaqayso iyo mar masaa'il la dhisay wax lagu sadaqayso sadaqa habeen walba taagan ma taqaaneen sadaqa habeen walba taagan waxa weeyaan waa ninka xaas leh habeen walba sadaqo ku jira isagu saamo waqtiin nabigeena sheegay kaleeyhi salaatu wassalaam waxa uu nabigeena kaleeyhi salaatu wassalaam xadiidka Abu Dharr al-Ghifari fi sahih Muslim markuu ka soo sheekay nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam waxyaalaha sadaqaadka noqonayo tasbiixda iyo subhanallah iyo alxamdulillah iyo Allahu akbar ay kamid yihiin ya nabigu wuxuu yiri maxal shaahidka inuu soo qaadanay wa fi bad'i ahadikum sadaqa mid idin kamidana xubinkiisa taranka ajri iyo sadaqo ka helaya saxaabadu waxay rasuulka ilaahay ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajru midka yama intuu shahwadiisa iyo dareenkiisa guto ba hadana ajri loogu daraya nabigu wuxuu kaleeyhi salaatu wassalaam araaytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizru kawarhama hadii haram dareenka ku gudan lahayo shahwada dambi miyuuna ka qaadeen jawaabtu waa ha fakadalika idha wada'aha fi halal sidaas oo kale hadii halal uu ku guto ajri buu ka helayaa idan ka waran habeen walba sadaqa taagan marka ku jirto ka warhama marka waxa weeyaan wadaadadan iyo dadkan markaas waxa weeyaan dhaxamaha ka hoyday iyo marka dadka ilaahay u nicmeeyay habeen walba sadaqadaas ay ku jiraan qodobka waan ka baxayaa insha Allah ta'ala marka waxaan dhihilaha dhalinyarada iyo iska bulada bustaha tunka kuwata ee habeen bal meeshu gabalka ugu dhaco hoynaya kooy marka ha sameeysan dhaxamaha ka hoydaan markaas waxa weeyaan taa ha sameeyaan insha Allah ta'ala gabadhuna hamigeeda iyo waxay ku fikirtaa nin saalix oo diinteeda iyo dunyadeeda ay u kaalmaysataa ku fikirto wiilkuna sidaas oo kale ku fikiro qof waalid haduu joogana waalidiintuna iyaguna ha u fikiraan dhalinyarada markaas waxaan ku soo gabagabeynaya misalada xadiidka nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam al-imaam at-Tabarani uu soo saaray nabigu kaleeyhi salaatu
والسلام ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أحدكم في أمر دينه ودنياه متكين هصا ميس قلب إلهي كشكريا إيا عرغب إلهي حصة إيا الزوجة دين تيس إيا الدنيا دي سوك الميسا تاين تاسان كيبحيا أقدم بينتي دورك وحن لايحي واد ما سنتين waana fiicantihiin marwooyinka idinku weeyaan idinku haddaad hagaagtiinna ummaddu way hagaagi idinku haddaad kharibantiinna ummaddu way kharibin waxaanaad aaw ugu faraxsanahay dumarkaan hor taaganahay markaas xafladda ka soo qayb galay qaalibkoodu way xijaaban yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna ha ku sii sugo inta aan xijaabnayn markaa waxaan ka codsanayaa inay xijaabka ku dadaalaan sida ilaahay salaada ugu waajibiyey ee soonka ugu waajibiyey ee cibaadadka ugu waajibiyay ilaahay wuxuu ugu waajibiyey xijaabka iyo xishoodka iyo xurmada iyo xushmada jirkaaga iyo jawhartaada qarso ha tusin tusaaluhu ugu dambeeyo waxa weeyaan sheekhina way garab taagan yahay haddaad marka suuqa tagto sabaayad baad aragtay marka la dubayo inaad soo gadataa rabto oo tusaalaan wax idinku fahansiinayo laba xabo waxa aragtay xabad sabaayad ahoo inta la dubay iyada waa lagu riday la daboolay diqsiga dulmaran laga ilaalinayo laga celinayo iyo waxa aragtay xabad inta la dubay halka la iska dhigay diqsiga quraanjada xayawaanka dabaysha boorka wax waliba ku dhacaya keediibsan jawaab baan u baahanahay daanu ilaa tiirasha lama hadlayay ya keediibsanaysa kan daboola Soomaa bayib hadaba gabadha xijaaban iyo tan xijaabnay saasay isku yihiin gabadha daboolan baa la wada rabaa iswada daboola saamo faanteen hatta ninka aan diinta waxba aan ka aqoonin gabadh diin la soo raadi ma ku dhig laana wuxuu og yahay awlaadiisa iyo gurigiisa waxa hagaajinaya waa gabadh diin leh inta waxa ugu dambaysa waa qodobkii ugu dambeeyaan taaganahay insha Allah sida quruxda badan ee aadka ugu faraxsanayno ugu bilaabatay ha inoogu dhamaato wacdiga iyo muhaadarada iyo quraankana wax macsiyo dambiyoona ka dambeeyay ma isla qaadanaa inta aad baad mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullah